wacanda wadayaal halkani waa xusuus joog meediya qodobada caawa wararkeena aad ku daawo doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish oo sheegay inay geeriyoodeen dad uu yaqaan kuwaasi oo geeriyooday xanuunka coronavirus qofkii ugu horeeyay xanuunka coronavirus ugu geeriyooday Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay deegaan hoos yimaada gobolka Galgaduud wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo qalab cusub maanta kala wareegtay dawladda Talyaaniga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo digniin culus u diray dhaqanka Somaliland wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo war ka soo saartay kororka xanuunka coronavirus ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf oo si dhaqsi ah ugu laabtay Dhuusamareeb safar aan la shaacin iyo Puntland oo soo saartay awaamiir ku socota shacabka deegaanada Puntland intaasi waxay ahaayeen qodobadii aad maqasheen daawadayaal haatan ku soo dhawaada iyaga faahfaahsan kani waa channelka xusuus u joog media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartan soo gelino waliba inagala soco xusuus u joog media gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa sheegay in dad uu garanayo ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu dalka soo gaaray waxa uu tilmaamay in dad uu garanayo ay xanuunkaasi u geeriyoodeen kuwaasi oo uu shaaciyay inaysan ka imaan dalka dibadiisa oo ay ku sugnaayeen dalka gudihiisa waxa uu hoosta ka xariiqay in dadkaas oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 qaarkood la aasay halka qaar kalena aan wali la aasin sida hadalku uu dhigay dhanka kale gudoomiyaha ayaa ka dhawaajiyay halista uu leeyahay cudurkan isagoo oo sheegay in si fudud loo kala qaadi karo cudurkan waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay digtoonaadaan taxadarkoodana ay muujiyaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay qalab cusub kaasi oo ka soo gaaray dawladda Talyaaniga wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay qalab cusub qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qalabkan Soomaaliya ay u iibisay dawladda Talyaaniga wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta ay la wareegtay qalab caafimaad oo muhiim ah sida ay sheegtay kaasi oo ah qalabka looga hortago coronavirus qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in qalabkan Soomaaliya ay u iibisay safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho isla markaana loo isticmaali doono coronavirus sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in qalabkan laga soo iibiyay wadanka Talyaaniga ayna gacan ka geysatay sidii Soomaaliya loo keeni lahaa qoraalka ayaa lagu yiri hay'adda caafimaadka adduunka ayaa maanta soo gaarsiisay qalab baaritaan kuna wareejisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya waxaana lacagta qalabka lagu gaday ku deeqday safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya waxaana gacan ka geysatay sidii loo keeni lahaa qalabkan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Galgaduud ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugid kana tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaan lagu magacaabo Qaayib kaasi oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya hore ayaa deegaankan dhacbariga ciidamada oo isugu jira booliis iyo nabad sugid kana tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaan lagu magacaabo Qaayib kaasi oo hoos yimaada gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya hore ayaa deegaanka dhacbariga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxa maamulayay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxaana la sheegayaa in saakay ay isaga baxeen markii ay ka war heleen inay ku soo wajahan yihiin ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya dhanka kale dadka ku nool deegaanka ay la wareegeen ciidamada dawladda ayaa sheegay in al-shabaab deegaankaasi ay isaga baxeen markii ay ka war heleen in ciidamadu ay ku soo wajahan yihiin saraakiisha horkacaysa ciidamadaasi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa sheegay in saakay ciidamadu ay ku dhaqaaqeen howlgal deegaankaasi looga wareegay al-shabaab ayaan wali ka hadlin la wareegitaanka ciidamada dawladda ee deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud qofkii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus ugu geeriyooday Soomaaliya waxa dalka ugu geeriyooday qofkii ugu horeeyay oo laga helay xanuunka coronavirus kaasi oo dhawaan la sheegay in dawladdu ay karantiishay kadib markii la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus muwaadinka oo lagu karantiilay isbitaalka Martini ayaa ahaa qof rag ah da'diisuna ay tahay 58 sano jir kuna sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Dr. Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah u qaabilsanaha dawada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ahna sargaal wasaaradda uga hadla xanuunka COVID-19 ayaa xaqiijiyay in qofkii ugu horeeyay coronavirus uu ugu geeriyooday Soomaaliya
qofkan ugu geeriyooday xanuunka coronavirus gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa wuxuu noqonayaa qof kii ugu horeeyay ee coronavirus ugu geeriyooday dalka gudihiisa tan iyo markii la shaaciyay kiisas laga helay dalka gudihiisa magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa digniin culus u diray odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland. madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa digniin culus u diray salaadiin maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta kuwaasi oo ka hadlay arrimo la xiriira wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. madaxweynaha ayaana sheegay in loo baahan yahay salaadiintu inay faraha kala baxaan siyaasadda Soomaaliland. maalmihii la soo dhaafay ayaa warbaahinta maqalka ay mid la iska arko waxaa ka soo muuqday qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland kuwaasi oo sheegaya inay u baahan yihiin in doorkooda laga siiyo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. madaxweynaha maamulkaasi ayaa salaadiinta ugu baaqay inay faraha kala baxaan siyaasadda kuna ekaadaan dhaqanka iyo kala dhexdhexaadinta bulshada. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay faafitaanka xanuunka coronavirus. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war qoraal ay soo saartay waxa lagu yiri wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran inay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed hadba wixii soo kordha kana soo cusboonaada xanuunka COVID-19. waxay wasaaraddu cadeynaysaa inuu bilowday xanuunka coronavirus kaasi oo lagu arkay bulshada dhexdeeda. waxayna wasaaraddu xaqiijisay 4 xaaladood oo cusub kuwaasi oo la xiriira caabuqa coronavirus oo tirada guud ee caabuqa coronavirus dadka qaba ka dhigaysa 12 qof. ku dhawaad 8 qodob oo wasaaraddu ay soo saartay ayaa dhamaantood ku qotomay xanuunka coronavirus iyadoona bulshada loogu baaqay inay digtoonidooda muujiyaan lagana fogaado sidii ku faafi lahaa xanuunka. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa si dhaqso ah ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb safar aan la shaacin. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb kadib markii socdaal degdeg ah uu ugu laabtay habeen ka hor magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xaaf ayaa lagu sheegay inuu xalay dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb kadib socdaalkiisii Gaalkacyo waxaana ka soo baxaya socdaalkiisa hadallo kala duwan. qoraalka ayaa waxa lagu xusay socdaalka madaxweyne Xaaf inay jiraan dad badan oo siyaabo kala duwan u dhigay balse uu halkaasi u tagay arrimo isaga u gaar ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxweyne Xaaf. ugu dambeyntiina dowlad goboleedka Puntland ayaa war ka soo saaray xanuunka coronavirus kaasi oo ku wajahan shacabka ku dhaqan Puntland. wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa shacabka ku nool deegaanada Puntland uga digay inay tagaan goobaha la isugu yimaado si looga digtoonaado cudurka coronavirus. waxa uu sheegay in xilligan aysan jirin dad looga shakiyay xanuunka coronavirus kuwaasi oo ku sugan deegaanada Puntland oo la karantiilay ama la xaqiijiyay in xanuunkan ay qabaan. sidoo kale wasiirku wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ay si dhow ula socon doonaan hadba xaaladaha ku soo kordha deegaanada Puntland. sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ay si dhow ula socon doonaan xaaladaha caafimaad iyo xaaladda amni ee dadka ajaanibta ah ee ku sugan deegaanada Puntland si looga feeljignaado cudurka coronavirus. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkeeni caawa oo aad ka daawanayseen Xusuusjoog Media. tani intaan ku kulmi doono warkan mid ka xiga sida ay nabadgeliyo. waa channelka Xusuusjoog Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartaan soo gelino mar waliba inagala soco Xusuusjoog Media.